كومينيكيغا aad aragteen waxa lagu soo saaray isku soo jiijiid ay shanta maamul goboleed la isku soo jiijiiday iyadoo laba maalin ay ka soo wareegin dawladdu waxay bilowday inay culays soo saarto Hirshabeelle iyo Galmudug warshan maamul goboleeda saxiixay maxaa Galmudug iyo Hirshabeelle maxaa ayaga gaar ahaan maxaa warmurtiyeedkan maxaa dhibahooy ayagu ka geysteen waxa la yiraahdaa hadda ka hor Shabeella ilmihiisa geela ku is istaagay waa loo sheegay waxa la Shabeellow ilmahaadi geela ku istaagay geel ma hooyar waxa ku istaagay ari waay haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dawladdu faragelinta naga deeyo magaalada jidka wadnaha la yiraahdo wixii ka koreeya dawladdu gacan ku mahayso waad ogsoontiin magaalada khad cagaarana u yaal waxaan walwal ka qabnaa magaalada amnigeedu inuu gacanta ka bixi doono mardhow xoddaas dawladdu hadday haysane oo aysan ka falcelinayne waa mas'uuliyad darro haddaysan ogeyn waa mas'uuliyad darro ka sii daran waxa kale walwal aan ka qabnaa hay'adda niisa oo runtii laf dhabar u ahayd waa ogsoontiin 6 bilood 8 bilood ka hor meeshii la qabsaday ciidamada u gurmada oo saacado gudahood ku soo afjaray waxay ahayd ciidamada niisa xudooday ahaayeen waa la kala diray booliiska lagu diray liir qaar waa laba mandate ciidan laba mandate kala la waayo isku tababar ma isku jeedo ma waa booliiskiina waa lagu fidnay kuwii ka soo harayna annaga naloo dirayna waa nagu dhibaay deegaanadiina nagu dhibaayaan balweyne nagu dhibaayaan joohare nagu dhibaayaan sababta niisa oo loogu talagalay inay wadanka sirdoonkiisa iyo amnigiisa ka shaqeyso ay boorsooyin lacaga intay qaado balweyne u geynayso oo joohar u geynayso oo maamulada fidnaynaysan ma gara karno amniga gacantow ka baxay walwal badan aan ka qabnaa xildhibaanada ilaahay ha idin dhowro wixii hadda ka bilaaba is ilaaliya waa hadal nin oday waayo oo weyn xaaladda magaaladu waa isbedeshay arintaas cid lala qaybsadaa ma jirto cid loo sheegaa ma jirto waa walwal annaga nahay arinta kale arintaas la xiriirtaa waxa waaye banaadir maamulka ka dhisan dawladdu waxay ku dhisan tahay isla xisaabtan maamul laga la xisaabtami karo oo dhibka jira ka hadli kara magaalada xamar kama dhisno qofkii laga la xisaabtami lahaa amnigaas wuxuu u cabsanaa jigadiisa u cabsanaa sida hadda aad arkayseen nin mataqaana gudoomiye degma ma aqaan aniga wax lagu maagayo oo la xiraal leeyahay sababtoo wuxuu ka sheegay xaaladda jirta xaaladda amniga xamar inay wax iska bedelaan hadii la rabo maqaamka dastuuriga oo xamar waa meesheeda waa in loo dhisaa maamul dadka accountable u ah oo la soo doorto oo dawladda ka madax banaan maamul dawladdu gacanta ku hayso oo meeyarkeedu markuu madaxa kor u qaado madaxa lagu dhufanayo oo markuu yiraahdo war dhibkaana ay haysta leeyahay adiga waa war badatay meesha nabadgelyo wax kama qaban karo arinta amniga concerns kaasan ka muujinay maamuladuna concerns la mid ah ka muujiyeen arinta labaad oo muhiimadda ahayd oo shirka ka soo baxda waxay ahayd dastuurkii lagu heshiiyay oo federaalka aaminsanaa ku dhaqankiisii in laga leexday dawladdu ay u dhaqmayso sidii dawlad mataqaana unitary ah centerku wax walba xukumo muxuu ahaa ii sheeg waxay doonto ay sameynayso dastuurkiisi aan loo jeedinaa shaqo looga haayaa oo cid laga la tashana aysan jirin waxaan cabsi ka qabnaa si tartiiba xuquuqihii muwaadinka in tartiib meesha looga saarayo xurriyatul qowlka in qofku uu wuxuu raba sheego oo dawladda yiraahdo dhibkaanan qabaa waxay ku taalaa dastuurka
annaga hadda miidii inta aan ku ballansanna aawe soo bannaanka lagu macilin been miyaa sheegaa soo lama bixin hadda xurriyatul qowlka dastuurku qoraayo la sheegaayo oo dastuurka ku taal aawe dastuurkii hawsha laga wadana dawlad goboleedyadu aaday mataqaanaa ay walwal uga muujiyeen qodobkaas qodobka labaad waay qodobka saddexaad waxa waaye barnaamijka doorashooyinka dawladdu waxay wadaa barnaamij ay doorashada 2020ka ayadu isteerinka u hayso sharciyadeedii la qorowhayaa makiinadihii lagu codeynaayaa la keenay registration mataqaana roleskiya la diyaariyo haya waxa la rabaa Soomaaliya oo dhan wax la dhaho single constituency laga soo hal constituency waay ujeedada laga leeyahay waa in xamar la iskugu keeno ama meel kale la iskugu keeno qof walba qofkii lagu bedeli lahaana la diyaarsado annagu wadanka talaan ku leenahay ka yeeli mayno absolutely ka yeeli mayno xildhibaanada dadkooda soo doorta deegaanadooda laga soo doorta waa inuu qofku tuulada tago Soomaha waa inuu ceel baraf tago waa inuu muqkuri tago waa inuu farlibaax tago waa inuu ceel cali tago waa inuu buqda tago waa inuu ruunirgo tago dadka u soo sheego waxa oo mataqaanaa dawladnimada uu qaban doono nin xamar hotel ka degan oo siyaasad lagu la saaxibay in la yiraahdo single constituency xamara looga soo qoray waxaan aqbali karna maaha arintaas maamul goboleedyadu waa ka qayliyeen wixii Hirshabeelle ah oo annaga noo gaara waxaan ka qabsan doonaa shir kale oo aan abaabuleyno oo xildhibaanada iyo senatarada iyo cuqaasha iyo salaadiinta aan isugu imaan doono aan ka tashan doono xaaladda Hirshabeelle ku sugan tahay